Hello guys. Hano Hankaaga channel kala soco motivational lessons, English lessons iyo weliba chemistry. Cashiradan waxaa kuu soo jeedin doona anigoo ah Al-Ustaad Bakar Maxamed Cabdulle Al-Ustaad Sunay. When you are going to get an exam, this is a very trick. This is a very problem that I can say 90% has. So look for the solution. Look for the solution. يعني هي حركة. Example. Why ardaydu ay imtixaanka u baqaan? Why do you fear? There is something else. There is something. waxa aad imtixaanka ugu baqdo wax baa jira. wax baa jira. Everything shay kasta oo dhaca waxaa ka dambeeya shay kale oo sabab u ah. Yani problem kasta oo jira waxaa jira wax sabab ah shalay. So that this morning I'm going to tell you that first maxaa problemkaas keenay xalka ugu fiican mooyaan. In myself, my three tsunami, how do I solve that? And ma sidaan ku xalin lahaa yani aan lahaa problemkaas oo ku haysta hada kaas oo aan imtixaanka akabaqo. So markii lagu keeno xaanshooyinka imtixaanka you feel shock. Yeah, you sweat a lot. wax badan aad diidaysaa. So what is that? What causes that problem? Dhibkaas maxaa sababay? It's very easy. Dhibkaas waxaa sababay kow, you don't prepare your lessons. First one, cashirkaaga ma diyaarsi. That is a problem. Because Majira, I ask you a question. Is there a person who fears what he knows or she knows? No. Majiro, qofka baqaaya wuxuu yaqaan. Okay? Example, let me say your father or your mother. Hooyada iyo aabaha waa taqaanaa, saaxiibkaa saaxiibtaa waa taqaanaa, asxaabta kugu dhow waa taqaanaa. You don't fear. Kama baqaysid. Laakiin haddii uu yiraahdo war inuu cadow ku soo socda oo nooca canka you fear. You don't know. Ma taqaanid cadowgaas inuu kugu soo weerari doonaa, cadowgaas inuu kugu imaan doonaa ma taqaanid. So marka waxaad ku fikiraysaa sidaad kaga gaashaantanayd. Marka problemku wuxuu yahay adigu ma akhrisid casharada. Second one waxay tahay problemku waxa waaye qof waxaa tahay oo careless ah. qof aan yani murug iyo tuna aan ku haynin inuu imtixaan ka qayb qaato, inuu imtixaan kaalooyinka galo ma tihin. Saddexaad waxay tahay waqti fiican ma seexatid habeenkii. Yes, waqti fiican habeenkii ma seexatid. Tan afaraad waxay tahay waqti hore kama soo kacay. haddii qofka habeen waqti hore uu seexdo wuxuu ka soo toosaa waqti hore. hadduu waqti dambe wuxuu ka soo toosaa waqti. That is a problem. Okay. iyo kuwa kaloo ayaa jira oo markaas sababaya inuu ardayga imtixaan ka baqo. Okay, maxaa xal ah? What is the solution? haddii shay kasta uu leeyahay sabab, shay kasta wuxuu leeyahay xal. xalka wuxuu yahay wuu fudud yahay. Number one horta qaad mas-uuliyadda ah inaad imtixaan galayso. The first one qaad يعني خاض مسؤولية إن امتحان جلسة. تان لبعض نوحي تهاي دلال أنت كراكاجا. دلال أنت كراكاجا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. Yes. قف الدنيا آخرة وعند ذلك دولي مابن. مركا وحال روانا دلاشو. أو مسؤولية امتحان كأخاطر. Everything is over. هدي مر أخاطر مسؤولية امتحان كا. wax walba bay dhamaanay. Example, haddii aad qaado mas'uuliyad imtixaan aad diyaariso, waad diyaarinaysaa, waad ka fikiraysaa, waqti hore aad seexanaysaa, wax kastoo ku wanaagsan waad garanaysaa. waxaa rabaa marka in arrinkaas isagu aad mas'uuliyad aad qaado marka hore. tan labaadna waxay tahay in aad ilaahay tala saarato subxaanahu wa tacaala. فإذا عزمت فتوكل على الله. haddii aad go'aansataan, haddii aad go'aan qaadataan, ilaahay tala saarta. imtixaankan ina aadinku wax awood u leeyahay malaha oo imtixaan ku baasi karo. laakiin dadaal dheer sameey kadibna ilaah u tala saar. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi saacad dabar
allana u tala saaro dadaalkii la imow dadaalkii sameey ilaah subxaanahu watacaala ha ilaabi oo ilaah tala saaro markii xaashada imtixaanka lagu keeno oo aad miiska imtixaanka kursiga aad fadhiistana waxaa lagaa rabaa in aadan imtixaanka ku boodino marka hore aad ilaah isku dhiibto oo aad tiraahdo ilaahu awood iyo xaaladtuna malihi laa xawla walaa quwata illa billah ilaahu awood iyo xaalad ima sugnaan ilaahu waxaan garanayo ma lahan ilaahu imtixaanka iyo fudude bismillah ku bilow imtixaanka markaad xaashada imtixaanka aad kala furtana magacaa ku qor kadibna waxaad samaysaa meel kastoo fudeed ah aad garanayso ka shaqee meelaha aadan garanayn insha allah way kugu soo dhici doonaan inta aad ka shaqeynayso meelaha aad garanayso solutionka waa kaasaa thank you so much muuqaalka share garee comment and like